qofka quraanka yaqaana qofka kale wuu ka aqli badan yahay qofka quraanka yaqaana qofka kale wuu ka aqli badan yahay ilaahay wuxuu leeyahay subhanahu wa ta'ala inna anzalnahu qur'aanan arabiyya la'allakum ta'qilun ya waxaanu soo dejinay qur'aan luqada carabiga ku socda si aad aqli u yeelataan quraanka marka qofka xafida dadka kale wuu ka aqli badan yahay dadka kale wuu ka aqli badan yahay laanahu fahmadu kordhiya waad aragteen xataa iskuulka maadooyinka marka ardayda imtixaanka laga qaadayo ardayga quraanka xifdiya ayaa ugu dhibca sareeya iskuulka ya ardayga quraanka xifdiya ayaa iskuulka ugu dhibca sareeya haddii loo dhigayo maadooyinka ugu dhibka badan isaga mar walba hogaaminaya ardayga quraanka aan aqoon saa ku hogaaminaya luqada ingiriiska xataa haddii loo dhigo waqti kooban uu ku baranayaa quraanka qofka xifdiyay meelaha ugu dhib badan taynisiyalka ugu dhib badan iyo irregular verbs marka loo dhigayo oo la siinayo meelaha ugu dhibka badan ingiriiska irregular verbska afcaasha ah aad u xafidahay si fudud laana wuxuu soo bartay fabi'ayyi aalaa'i rabbikuma tukadibani inta la kala saarayo marka ma dhibayaan yaani verbsyalka irregularka ah iyo wixii regular ku imanaya daqiiqadu ku kala saaraya ardayga xaafid quraanka ah laakiin qofkii aan quraan soo baran waxa laga yaabaa in maskaxdiisu weligiis ay noqoto maskax culays uu saaran yahay maadaama quraanka barakadiisii maskaxdiisa ay ka maqan tahay ولذلك marka walaalayaal quraanka xifdigiisu waa baraka fi dunya wal aakhirah irsaaqadaada ilaahay ku barakeeya qofka quraanka yaqaana quraankana ku amal fala meel uusan ka filayn ayaa risqigiisu uga yimaada waa bangi ku furan quraanku bangi ku furan waa adduunyada ولذلك وحوي وحديه جري شيخ لديه جري فضيل بن عياض سيد الإمام النووي رحمه الله تعالى كتاب كيسا التبيان في آداب حملة القرآن وينوغ الشيخ وحديه جري لا ينبغي لحامل القرآن أن تكون له حاجة للسلطان فمن دونه قف قرآن يقانا عيبي كتها مدحوين يعيد كسو كيسين وباهضه لأنه بنقي أيها يستا يا madaxweynaha adiga ka sareeya hadaad quraanka taqaano laakiin qalbi wanaagsan hadaad leedahay yaqiin hadaad ku kalsoon tahay quraanka adduunyadan adiga boqor ka ah aakhirana adiga boqor ku ah qalbi wanaagsan hadaad quraanka ku akhrisato madaxweyne iyo cid ka sokaysaba inuu u baahdo ceebay ku tahay qofka xaamil quraanka ah ya quraanka walaalayaal dad oo dhan lama wada siiyo dad uu ilaahay doortay umba ilaahay quraanka siiya ilaahay wuxuu leeyahay subhanahu wa ta'ala thumma awrathna alkitaba alladhina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khayrati bi idnillah dhalika huwa al fadlu al kabir kitabkan waxaan dhaxal u siinaa alladhina istafayna min ibadina kuwi adoomadeena aanu ka dhex dooranay ayaan dhaxal u siinaa kitabkan dad lama wada siiyo dad uu ilaahay doortay umba rabbi subhanahu wa ta'ala kitabkan quraanka ilaahay uu siiya ogaw daalibka ama ardayga quraanka xifdiyo inaad ku xifdisay doorasho ilaahay ogaw in allaha yu'di hadhihi dunya liman yuhibbuhu wa liman la yuhibbuhu wa la yu'di alqur'ana wal ilma an-nafi' illa liman yuhibbuhu ilaahay adduunyadan qof uu jecel yahay uu siiya قال إلهي ونعب يهي وإلهي عدوغي سنووسيا لكن قرآنك هي علمك هي الدين النافعة إلهي عدو جعل يهي أنبوسيا يا قفو جعل يهي أنبو إلهي سيا قرآنك هي الدين لكن لعقت هي الذهبك هي الدولارك قال نوه هيستا الشيطان نوه هيستا يا فاسق مؤمن نوه هيستا وسخلاص واللغو سمية وسخلاص عدو البائسكا هيستا عيد والبا أي أكون كيس وجرتا قال نواهستا مؤمن واهستا فاسق واهستا فاجر واهستا لكن دين ما الله وضع هستا عبادة علم نافعة
يا dad khaasa oo ilaahay uu jecel yahay diinta iyo quraanka loogu deeqaa thumma awrathna alkitaaba alladina istafayna min cibaadina alladina istafayna min cibaadina kuwii addoommada aanu ka dooranay ayaan siinaahu ilaahay leeyahay subxaanahu watacaala dhaxal u siinaa qur-aankan walidaalika nabigeena sala allahu wasalam wabaaraka calayh wuxuu tilmaamay dadka la majeersado oo la yidhaaho yaa iyagoo kale kaa dhiga waa dadka qur-aanka iyo diinta yaqaana mar walbaba dhallinyarowy dadkaas beegsaba dadkaas ku dayda nabigeenna wuxuu yidhi sala allahu wasalam wabaaraka calayh laa xasada ilaa fi itnatayn laba qof uunbaa adduunka laga majeersadaa oo yidhaaha iyagoo kale yaa ku gaarsiiya iyagoo kale yaa ku siiya dariiqoodoo kale yaa ku marsiiya laba qofaa laga majeersadaa adduunkan labadaa qof yaa ugu horreeya rajulun aataahu allaahu alqur'aan fahuwa yaquumu bihi aanaa alleyli wa aanaa annahaar qof ilaahay qur'aankii uu siiyey maalintiina akhrinaya habeenkiina akhrinaya ku cibaadaysanaya yaa kaasoo kale ayaa la majeersadaa kaasoo kalea la majeersadaa oo la yidhaha ayaa kaa dhiga laakiin midka dahabka wata midka daaraha dhaadheer leh kan doolarka leh waxa weeye lama majeersado sababtoo ah waxa weeye waa wax iska dhammaanaya waa wax gaal iyo muslimba ay wada haystaan qiimo weyn ma lahan qofka xaafid qur-aanka ah ee qur-aanka la siiyey habeenkiina ku cibaadaysanaya maalintiina ku cibaadaysanaya qofkaasaa mar walbaba la majeersada oo yaa kaa dhiga yaa ku gaarsiiya qofkaasaa la yidhaah walidaalika nabigeena sala allahu wasalam wabaaraka calayh xadiiskii ibnu maajah uu warinayay wuxuu inoogu sheegay inna lilaahi ahliina min annaas ilaahay dadka ahal khaasuhuu ku leeyahay oo si gaara ilaahay subxaanahu watacaala uu u jecel yahay oo u qadariyo oo u xushmeeyo qiila yaa rasuula allaahi man hum rasuulka ilaahayow dadkaasi maxay yihiin wuxuu yidhi nabigu sala allahu calayh wasalam hum ahlu lqur'aan ahlullaahi wa khaasatuhu waa dadka ahlu qur-aanka dadka ilaahay si gaara uu u jecel yahay ahalkii ilaahay waa ahalkii ilaahay way qofkaasi qofka waran lagu tilmaamay ahalkii ilaahay yaa qof sahlan ma aha ahlullaahi wa khaasatuhu waa dadka ilaahay khaaska u ahaa layidhi dadka ilaahay khawaastiisa ahwo weligaa marka waxaa la hamiyaa yaa xaafid qur-aan kaa dhiga yaa caalim caabida kaa dhiga waa maqaamaad waaweyn adduunyadana sharaf aakhirana sharaf ku ah